Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed inta beeshkayga ku xiran iyo inta muuqaalkan uu soo gaari doono codkaygana dhagaysan doonta. Bacdi salaan qiimo iyo qaayo mudan walaalayaal. Maanta waxaan doonayaa halkan inaan nigula wadaago qodob 2 xarfood u kala dhigma. Labadaas xarfoodna ee aad saameyn weyn muhiima ay ka door qaadanayaan nolosha insaanka ama bini'aadanka gabi ahaantiisaba bilowga ilaa iyo dhamaadka. Labadan qodob walaalayaal oo 2 xarfood u kala baxa ayaan waxaan doonayaa meeshan intii aqoonteeda walaalahayga Soomaaliyeed inaan nigula wadaago. Labadan qodob oo ay kala yihiin xigmad iyo caqli. Xigmadda iyo caqliga walaalayaal 5 qaybood ayaan u kala qaadayaa. 5taas qaybood aan sii falanqayn doono midba goonidiisa. Qaybta koowaad waxaa weeyaan maxay ay tahay xigmad iyo caqli maxay kala yihiin. Xigmad walaalahayga run ahaantii waa aqoon. Aqoonna waa waxa lagu soo baray ama lagu soo tabciyay. Haba ahaatee bilowga noloshaada duruustii ugu horeysay waalidkaa uu ku soo baray. Kadib ahaan aad hore u sii dhaadhacdo aqoon xigmad aad ku soo baratay duruusta iskoolka saan u naqaano waxbarashada buugay qalinka. Kadibna aad hore u sii socotayoo ilaa iyo xagga xirfadaha shaqada waxaad ku shaqaysan lahayd. 3daas qaybood ood ku noqon lahayd qof weyn oo kaligiis ismaareyn kara oo meel iska soo saaray markaa gaarto. 3daas qaybood ee nolosha marka aad xigmadda markaas u baahan tahay. Caqliga walaalahayga qaaliga haddaan u sii gudubno. Caqliga waa hoggaan ayuu ka dhigan yahay micnihiisa. Hoggaanka goormaad u baahan kartaa waa markii sidaan hadeer nii soo sharaxay xigmadda xiliyadeeda aad soo moodo qof kaligiis ismaareyn karo meel taagan oo kaligiis noloshiisa mas'uuliyadeeda qaadi kara markaad noqoto. Markaas ayaad caqliga lagu baahan yahay uu bilaabanayaa noloshaada inuu door weyn ka ciyaaro. Caqligaas oo horumarka noloshaada kuu soo saacidinaya hoggaankana kuu sidaya nolosha. Caqligaas oo aad lagaaga baahan yahay inaad wax ku soo darto xigmaddii ka baxsan noloshaada. Qaybta labaad walaalayaal haddaan hore uga sii dhaadhaco taasoo ay tahay maxay faa'iido ay u leedahay nolosha insaanka xigmadda ha ahaatee ama caqliga. Walaalayaal xigmadda haddaan ku bilaabo faa'iidada ay nolosha u leedahay waxay tahay waa aas-aaska noloshaada. Waad waxaad soo baratay oo la doonaya inaad noloshaada aqoon ahaan ku hagto. Haddaysan uunan geedka xididdo lahayn ama uu aas-aas lahayn si kastuu u barbaaro haddana meel buu ka qaloocanayaayo gabi ahaantiisa laga yaabaaba cimrigiisa xataa inuu soo gogoboobo iska badaaye inuu toos u koro. Taas tusaaladeeda waxaan u soo qaatay waxay tahay marka aas-aaska jiridda nolosha ayaa waxay tahay faa'iidadeeda dhan xigmadda. Hore haddaan u sii socdo caqliga. Caqliga waa hoggaanka nolosha. Qofka aan caqligiisa aan isticmaali karin guul ma gaarayo. Hadduu hadaf guul uu rabo inuu gaaro qofka noloshiisa oo isbeddel iyo hor u socod inuu yeesho fikradaha kala duwan ee nolosha hagana ay ku soo tabcaan waa inuu caqligiisa isticmaali karaa ama natiijo
usoo dhalin kartaa bini'aadanka. faa'iidada caqliga hoggaanka nolosha weeyaan. qodobka saddexaad haddaan usii dhacdhaco walaalahayga qaaliga ah, labadan waxyaabood ama labadan farqi ee labadan qodob, caqliga iyo xigmadda ama xigmadda iyo caqliga, ma laba kala maarmi karaa? oo qofkii xigmad haysta caqliga wuu ka maarmi karaa, sidoo kalena caqliga qofka haysta ma ka maarmi karaa xigmadda? jawaabtu walaalayaal waa maya. maxaa yeelay qofka aqoon hadduu leeyahay uu xigmaysan yahay uunan caqligiisa ama hoggaankiisa uunan lahayn, waxaa dhacaysa markaas inuu qofkaas go'doom yahay, uu ku go'doomsan yahay meel uu asaga wixii lasoo baray ma ahee wax kale uusan ku dabcin karin noloshiisa. horumarka uu rabo inuusan gaari karin noloshiisa, inuu ku go'doomsan yahay inta ay uu dhaxal ahaan kasoo dhaxalay aqoontiisa, oo aqoon dhaxaleed kaliya uu u leeyahay. sidoo kale qofka caqliga badan leh ma ka maarmi karaa xigmadda? waa maya. maxaa yeelay xigmadda waxay tahay waa tiirka aas-aaska noloshaada. haddaadan aqoon lahayn hoggaankaagu waa qaldamayaa, meelo kale ayaa ka dhacaysa. qofka markaas waxaa dhacaysa inuu nolosha ay ka qaldanto xaggeeda ama hoggaankeeda. tusaale waxaan igu soo qaadayaa walaalahayga qaadiga, laba tusaalood ayaan ii soo qaadayaa. qofka insaanka markuuna caqli ku filan uuna haysanin, laakiinse xigmad fiican oo tabac iyo taayo leh uu haysto, waxaa dhacaysa inuu noloshiisa isbeddel ku samayn karin. waxaa dhacaysa inuu bulshada ama meesha dadka insaanka uu nolosha la qaybsado nooc walbaba ha ahaatee inuu ka go'doomsan yahay. waxaa dhacaysa inay dadka uu macaamilka la yahay horumarkooda uu markasta asaga sugaayaha u yahu sugaaya, wuxuu ayaga qofka kale uu ku arkana uu ku dhaqaaqaya, oo asaga naftiisa inuu dhabo u jeexi karin noloshiisa. waxaa dhacaysa inay heblaaya ama hebel markuu arko qofkaas waxay sameeyeen ama noloshooda guushay u soo hoyadeen, inuu ayaga ay tusaale u yihiinoo markastana nolosha lagu hago sidii waalidkiisa ku soo hagay daruustii iskoolka, waxqabadkii nolosha meeshuu ka natiijadeedii ka baran lahaa, uu sidoo kale lagu soo hagay inuu haddana asagoo weyn qof asaga ku facaa ama asaga ku da'ah uu ka sugo nolosha hoggaankeeda inuu ku maareeyo. qofka caqliga badan leh walaalayaal aanan haysanin xigmadda, waxaa dhacaysa maadaama qofka uu aqoontii uunan haysanin, laakiinse hagii ama hoggaankii nololeed uu haysto, hoggaan wuxuu haystaa markaas meel qaldan ka tuuri kara, jar qaldan ka boosin kara. si kastaba ha iska saxa qofkaas gadaal ahaan markuu xoogaa aqoon xigmadda xaggeeda uu ku waaye arqaato khaladaadkiisa, khaladaad badan ayuu galayaa. dadka marka caqliga saaxiibka u ah aanan xigmaysaneyn dhacooda iyo kofkooda ayaa badan, khaladaadkooda nolosha ayaa badan, waayo aragnimadana ayakaa iska cimri qaata. taasna mid loo baahan yahay ma aha walaal. saasay ku noqotay labadan xigmad iyo caqli inaysan kala maarmin. hoggaan kama maarmo aqoonna kama maaranto hoggaanka. qodobka saddexaad walaalahayga qaaliga, haddaan usii dhaadhacon horaniisii hago, walaalahayga
sharafta iyo qiimaha iga mudan. Markuu qofka insaanka uuna xigmad lahayn, uusan lahaydna walaalahayga qaaliga ah aqli haga, maxaa uu caqabada uu kala kulmi karaa nolosha dunida ee insaanka? Qofka aan xigmadda lahayn waa qof jaahil ah, waa qof aan aqoon dabacsanin, waa qof markuu yaraa aan ka faa'iidaysanin aqoontii ay insaanka kale ehelkiisa ha ahaadaan ama shisheeyihiisa ha ahaadaan nolosha ku hagayay uusan waxba ka dabacsan ama ka faa'iidaysan. Qofkaas oo aqligiisana aanan hab shaqa aysan lahayn oon hogaankana u qaban karin nolosha. Qofkaas waxaa dhacaysa marka Soomaali waxay ku mamaadaa qofkan weyn ma galo waxna ma galo waxna ma gudo, ama gar ma gasho garna kama baxdo. Waa qof madax adag, markaas ayaa meeshaas ka filan kartaa inay natiijadiisa waxqabadka ay noqoto. Qof aanan garna gelin oonan dadka ka gar qaadan karin, qof aanan natiijo fiicanna keenin waxna laga faa'iideynin, qof asaga dhan nolosha ku kubacsan tahayoo culeysna noloshiisa u arka, insaanka kale horusocodkoodana xasda, oo aan arki karin bila'aadan wax qabsaday ama noloshiisa maareyn kara. Xigmadba ha ku maareeya ama hor u socod ha yeesho, aqligiisa ha ku maareeya. Qofkaas markaas waxaa dhacaysa walaalahayga qaaliga, asaga inuu isciilo, asaga inuu noloshiisa uunan asoo u jeeda inaynan dhadhan wacan iyo maadaama muhiimadii nolosha ay ka maqan tahay, uu ku mashquulo insaanka asaga la mid ah ay macruuf ka yihiin ama ay xidid ka yihiin oo dadkay lugooya. Wuxuu bartaa xirfadaha qaldan ee maskaxdiisa ku tabcinaysa, maadaama ay tii kala labadii muhiimka nolosha hagga iyo aqoonta u ahaa inaan u ka faa'iidaysanin yaraantiisa iyo weynaantiisaba. Waxaa dhacaysa markaas inuu insaanka kale jalaafeeyo, waxaa dhacaysa insaanka kale inuu ku mashquulo, waxaa dhacaysa inuu cadowtinimo iyo nacaab uu insaanka kale asoo aanan muujinaynin tusiyo. Qodobka afaraad haddaan usii qotan karno walaalayaal, qofka xigmadda u saaxiibka ah, aqligana u saaxiibka ah, oo aqoonna leh, noloshiisana maareyn karo, hagi kara, waxay qofkaasoo kale waa dadka maantay waxbarasho waxaa la yiraahdo maskaxdooda aan ka soo maalnay. Waa dadka maantay markay na hagayaan si xigmaysan oo aqliyeysan noo haga. Waa dadka natiijooyinkooda adduunka ay ku tusaale qaataan insaanka kale ama xigmadda ama aqliga kaliya saaxiibka u ah. Waa dad markay kobcinayaan ama isbeddel nololeed ay sameynayaan ayagoo haddana miisaan ku socda aysan qaladaadkooda yar yahay. Waa dadka guusha nolosha soo xarigeliya, waa dadka farxadda iyo raareynta ay wejigooda ka muuqato. Waa dadkana walaalayaal mar walba ay faa'iidada insaanka kale u noqdaan oo marna cadowtinimada iyo khayaanada ka saleegsan. Midda shanaad walaalayaal aan nila wadaagayo, aan jeclahay inaan nila wadaago, mahmaah waxaan igu soo tusaale qaadayaa walaalayaal. Midda koowaad oo adduunyada meel walba insaan ku nool yahayba
luqadaha insaanka looga hadlo ay mahmaahdaas ay leedahay. Soomaali ahaanna aan dhahno waxaad yaraan ku barataad weynaan isku maaraysaa ama ku dhaqantaa. Mahmaahdan oo dunidoo idil luqad walba mahmaah u tahay. Mahmaahdan oo mahmaah xigmaysan ay tahay. Walaalayaal, waxaa kalaan doonayaa inaan ila wadaago 2 tusaalood. Haddaan fiirino dadka xigmadda inta badan insaanka ay nolosha u maarayso, waa dadka caafimaadka iyo xanuunka Ilaahay baa bixiya. Intii xanuunsana walaalayga qaaliga Allaha daaweeyo, inta aanan xanuunsanaynna Ilaahay caafimaadkooda u saa'idiyo. Waa dadka dhimirka ama maskaxda sidaad u taqaaniin ayakoo jiran ama cudurka qaba ama ayadoo fadhiisataba haddaan u casriyeeno ku dhasha. Dadkaas oo waalidiintooda xigmadooda ay soo bareen ay markaas nolol haggooda u noqoto. Dadkaasoona isbeddel aanan sameynin. Dadkaasoo ka taxadara inuu ruux kala markay weynaadaan xataa fikradihiisa ay ku beddelmaan. Dadkaas oo wareegga nolosha ku jira si fiican u xifdiya, faa'iido badanna noloshooda iyo farxad iyo reynreyn kula wadaaga, laakiinse iska ilaaliya inay meeshoodaas lagu gardareysto oo iska daafaca. Dadkaas oo ka dheeraada dadka cilmiyeysan ama maskaxda xaggooda hoggaanka nololeed ku haga. Tusaalaha kale walaalayaal aan ila wadaagayo waxay tahay dadka aqliga badan oo aqliga u saaxiibka ah oo aqliga uu hago, waa dadka inta badan horumarka iyo waxyaalaha tiknooloojiga iyo isbeddelka adduunyada nolosha iyo wax soo dhalinta natiijooyinka iyo waxbarashada adduunka maskaxdooda laga soo maalo. Waa dadka haga noolaha adduunka. Waa dadka fikradaha keena. Waa markay caqabad jirto dadka loo gardhigo la yiraahdo walaalayaalow ama walaale keen fikrad. Waa dadka fikradooda lagu nool yahay. Waa dadka maskaxdooda waxay ku soo fikirto saameyn weyn adduunka ku leh. Intaas waxaan ku soo afjarayaa walaalayga qaaliga. Midda aan ku soo afjaraya waxay tahay xigmad iyo caqli. Xigmad caqli kama maaranto, caqlina xigmad kama maarmo. Xigmadda waa aqoonta. Aqoon aanan lahaynna dunidan wax badan jalaafaa way hor imaan doonaan. Qofka aqligana kama maarmi kara xigmadda. Xigmaddana aqliga kama maarmi karto saan ii sheegay. Qofka aanan aqliga leh ana xigmadda lahayn waa qof marax habaabsan. Waa qof jalaafo kastoo la dhiga ku siriqada. Waa qof fikradda qaldan ku fikira. Waa qof markay fikrad insaanka ahaantiisaba uu ku fikiro inay meel qaldan kala dhacdo ama si qaldan u isticmaalo. Walaalahayga qaaliga ah, fiidiyowgan ku xigo waxaan u kala dhigi doonaa 2 qaybood oo ku saleysan qodobka jaceylka wuxuu yahay. Hadeertaana waxaan iga tagayaa salaanta ugu qiimaha iyo qaayaha badan ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod xiisa badan dhammaanteena.